deeqo kala duwan oo ka imanaya jaaliyadaha qurba joogga ee gobolka Gabiley maalmihii ugu dambeysay ayaa maanta soo gaaray gudida abaaraha ee gobolka Gabiley ganacsatada ku dhaqan gobolka Gabiley ayaa iyaguna sidoo kale u kacay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee gobolka Gabiley barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdilaahi Cali Case imaamka magaalada Gabiley Xasan Jaamac Xasan warmahaye iyo xubno kale oo kamid ah gudidaasi ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay taakulaynta dadka abaaraha ee gobolkaasi Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa ama bacda waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo lacag soo direen ururka hada oo degan magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ururkaas runtii aad ugu qabtaa xagga waxbarashada gobolka Gabiley ayaa waxay ii soo direen lacag dhan $2,440 lacagtaas ku wareejinayo gudida abaaraha ولada magaalada Bristol hada la yiraahdo lacagtaas ka gudoonay iyadoo amaanada sidii la noogu dhiibay aan u filanayno imika abaaraha loo fadhiyo lacagta 2,440 ah ee ay soo direen ururka hada ee magaalada Bristol waanu ku gudoonay waxaanu ugu ducaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu arsaaqdooda siyaadiyo halkii ay ka soo baxeen oo leeyahay caafimaadkooda iyo kareerkooda iyo dhamaantoodbana إلهي وخير له كجزائي هذا مقيا قدوميها قدية كنعسفرة مستر علي وحكى لهم هذا مقيا قدوميها قبل كمحمود وحكى لهم هذا مقيا قدوميها تجمدة قدوميها حكيها قبل ك يردمان حبناها كلا كنعسفرة كتشوجا إيو قدية عبارها وحادي هرتي أن وحلا فرحة إن تدخل أي هرام وحوي ayaa waxa noogu soo dhacday 270 qoys inay raashikoodii nasiiyeen meel weyn baan anaga dabo halkan waxaan ugu mahadnaq ugu soo jeedinayaa Soomaalidu waxa ku maamulada geel duqwa loo tuuyaa baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku wajahna abaaraha oo inoo fududeeyay in meel kasta waxay naga soo gaaraan haddii hay'ad tahay haddii gudida abaaraha heer qaran tahay iyo haddii ay tahay dad kale oo saalixiin ah mar labaadka waxaan halkan baaq uga dirayaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanayaa in loo soo diro waxa jira duruufo caafimaad oo dadka iyo xoolahaba leh oo ay xogtii ay soo ururiyeen gudidii abaaraha ee mishiiska u baxay ay koow ka ahayd waxaan ka codsanaynaa inay noo soo diraan team nagala shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo aakhiraba inuu idinka siiyo gudida ganacsatada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa jaaliyadii uu ka socday master mawlid uu ka socday Bristol aad baan ugu mahadnaqayaa waxaynu ku jiraa waqti adag de waxa weeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii reerkeena wax kolka farasaarkiinka golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan gudida abaaraha heer gobol iyo bahda saxaafadda ganacsatada dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn waxaynu u mahad celinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu garansiiyay inaynu u adeegno oo inuu u gurmano dadkeena tabaalaysan abaaruhu saameeyay hawsha khayriga aynu gacanta ku hayno intii abaartu dhacdayba waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ururka hada Bristol oo ah urur ka jira magaalada Bristol ee dalka gobolka keenay arrimaha bulshada hore uga qayb qaadan jiray maantana $2,440 kaga soo aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ganacsatada gobolka Gabiley xubnaha kooban ee la yeeriyay isku wada qaadi mayna ganacsatada in badan oo wax haysta ayaa ka maqan oo wali waxba waxa weey ku darsan hawsha ummadooda lagu gurmanayo marka inta kooban ee 13 aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa Ilaahayna ka abaal mariyo inta kalena waxaan leenahay waa la idin fadhiyaa waana la idin ka sugaya ummadda aad ka dhex shaqaysanaysaan ee tawaalaysan wixii aad kaga darsanaysaan inta kalena waxaa si rasmi ah loo gaarsiiyay gudida abaaraha ee gobolka Gabiley deeq booyada oo loo diray dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolkaasi Gabiley anagu joogna xorantii gobolka Gabiley hortiisa oo ka kooban gudidii heer qaran ee taakulaynta dadka abaaraysan in la fuliyo
gurmad ka turjumaya baahida dadkeena oo baryahan ba socday oo ay ugu dambeeyeen gurmad ballaaran oo shay laga sameeyay waqooyiga iyo waxa weeye waqooyiga maanta waxaan u taaganahay inaan fulino mashruuc biyo dhaamis ah oo ku wajahan wixii ka sareeya meelaha ugu baahida badan leh ee hadda aan soo tira koobnay waxaan ka fulaynaa in lacagihii walaalaha dibaddu ay soo bixiyeen qayb ka mid ah guud ahaanba waddanka ka taagan wax ka soo tartay halkan maanta aad joogno waa booyado biyo dhaana oo guddida abaaraha ee heer gobol deeqihii ka soo gaadhay dadka kala duwan ee jaalidaha reer Soomaaliland ama reer Gabiley ee dibadaha wixii ka soo gaadhay biyo dhaan gurmada oo ay ka fidiyeen weeye tan markaa maanta waxaan u dirinaa meelihii kale aanu soo aragnay ee dadku biyaha aad ugu baahnaayeen ee hay'aduhuna gaadhin insha Allah hawshaasi way socotaa baahidu aad bay u badan tahay wixii calafkii xooluhu cunayeen ayaa isaguna loo baahan yahay in la iibiyo qorshahana way noogu jirtaa waa Nimcaan Dheeg TV qaranka Gabiley.